cinwaanka ayaa sidiisaba yaab leh. Israa'iil ayaa dagaal iskula jirta. Wargeyska New York Times la yiraahdo warbixintan waxa ay si qoto dheer uga hadlaysaa saska kala qaybsanaanta iyo waxa lagu sheegay godoominta caalamiga Israa'iil ay ku dhex jirto 2 sano kadib markii ururka Hamas ay weerar gaadma ku qaadeen 7 Oktoobar 2023 oo lagu tilmaamay inuu ahaa weerarkii ugu xanuunka badnaa ee niyadjabinta weyn ku keenay Israa'iil oo ilaa ay haddeertaan ay ka sabri laayeen. Roger Cohen oo asna la shaqeeya warsidaha la yiraahdo Middle East bariga dhexana muddo dheer ka waramayay ayaa waxa uu sanado badan xogaal u ahaa waxyaabaha ka socda Israa'iil ayaa dhowr toddobaad waxa uu dhawaan tagay Israa'iil isaga iyo Sahir Al-Gara waxa ayna ka hadlayeen dagaalka marinka Gaza ilaa ay intii uu bilowday Oktoobar 2023 waxayna ku adkaysanayeen Israa'iil in ay tahay qaran cabsi iyo kala qaybsanaan ku jira 2 sano kadib weerarkii ururka Hamas ay ku dileen 1200 oo Israa'iiliina ayaa natiijada ka dhalatay waxay tahay xarig in la kaxaysto maxaabiis. Israa'iil ayaa dhaawac weyn gaaray iyo kala qaybsanaan deegaanka la yiraahdo Kabus Ner Oz halkaasoo 117 ka mid ah dadkii deganaa oo 384 ahaa la dilay, qaarna la afduubay, qaarna uu la yahay. waxayna marqaati cad u tahay tuuladaasi inay tahay mid weli saas ku jirta burburkiina ku dhex jirta. waayahay marka dadka deegaanka maalintaasi maanta oo kale 2 sano ka hor xaaladdu ay qabsatay maxay ka sheekeynayaan? Olo Mesaga oo ku noqotay deegaankaasi ayaa tilmaamaysa in sheeko kasta oo la soo qaado ee Oktoobar 7 ku dhamaanayso. ninkeeda Nir Megeza ayaa waxa uu ahaa ninka xoogayaha u ah munaasabada meeshii lagu qabanayay. wuxuuna tilmaamayaa asagoo dood kulul ka qayb galaya gurihii la gubay waxaa loo ogolaan karaa dadkii inay dib ugu soo noqdaan mase waxaa laga dhigayaa meel lagu xusuusto dadkii ku dhintay meesha. dagaalka ayaa sidoo kale wuxuu ruxay sawirkii Israa'iil ee caalamka ku lahayd sida Cohen iyo Al-Gara oo labadoodaba arrimaha howlgalka military ee Gaza ka socda muddo dheer ka hadlayay. halkaasoo lagu dilay 10,000 oo Falastiiniyiin ah. burbur weyn ay Israa'iil ka geysatay caalamkana uu ku eedeynayo inay xasuuq geysanayso Israa'iil taasoo xaaladda sii xumeynaysa iyo ayada oo adduunka ugu sii kordhay nacaybka Yuhuudda sida hadalka loo dhigay. waxayna muujinaysaa taasi waxa tusaale cad u ah weerarkii dhawaan lagu qaaday macbadkii Yuhuudda ee ku yaalay gobolka Manchester ee waddanka Britain. waa gartay waxyaalaha kale laakiin waxa ka mid ah dadkii oo cudurro badan ay haleeleen nafshid ha noqoto cudurro kale oo nafsaaniya iyo Israa'iil oo laga haajirayo. wargeyska halkaas muxuu ka sheegayaa? Israa'iil ayaa waxaa la soo gudboonaaday qaxii ugu badnaa sanadka 2024 83,000 ayaa la diiwaan geliyay taasoo 50% kordhisay dadkii sanadkii 2003 barakacay. dadkii waxaa qabsaday waxaan aniga aan nafshidka ku sheegnay macnaha xanuun xagga maskaxda iyo dhimirka ah oo lagu tilmaamay inuu yahay mid aad u ballaaran. 7 xubnood oo ka tirsan ciidamada Israa'iil ayaa bishii Juulaay iyo bishii August kaliya naftooda dilay. dareen guud ayaa jira oo xudun u ah bulshada Israa'iil in ay kala daadanayso sida laga soo xiganayo in qoraa isla markaana taariikhiyahana Gershom Gomberg la yiraahdo. waa gartay marka laga tago dhibaatadaasi dadka haysata
waxaa haddana taagan xasilooni darro siyaasadeed oo haraysa Israa'iil muxuu wargeysku ka sheegay dhinacaas maxaabiistii Israa'iil laga kaxaystay oo xaalad xun ku jira qaar ka midana la hayo in ka badan 725 maalmood ayaa xudun u ah saska Israa'iil ay ku dhex jirto waxaana dheeraaday qalalaasaha iyo dagaalka oo horseeday caro ballaaran iyo dadka ka dhaadhacsan tahay in dimuqraadiyadda Israa'iil ay burburayso min hore wasiir u ahaan jiray iyo madaxii ciidamada qalabka sida wasiirkii gaashaandhig u ahaan jiray iyo ciidamada madaxa ama abanduulihii ciidamada Moshe Yaalon ayaa laga soo xigtay asagoo sheegaya inuu aad uga careysan yahay sida ay wax walba noqdeen waxaan ka lunnay buu leeyahay wadadii qiimihii xukuumadeed aan lahayn jirnay maxaa ku dhacay wuxuuna ku tilmaamayaa xaaladda dowladda hadda jirta inay tahay mid cunsuriyad ah xaasidnimo iyo dhaqan xumo leh musuqmaasuq iyo xukun maroorsi kaliya taliya ah ayuu ku tilmaamay xukuumadda Netanyahu waaya maxaa lagu eedeynayaa marka Netanyahu eedamaha loo soo jeedinaya maxaa ugu waaweyn dadka ka soo horjeeda Netanyahu ra'iisul wasaaraha waddanka Israa'iil ayaa waxay leeyihiin danihiisa siyaasadeed ayuu ka hormarinayaa danihii iyo mabaadi'dii qaranka waxa weeye al askari oo taageersan ma jiro waliba askarta dagaalka ku hoobanaysa waxaana la sharaxay inuu mudnaanta koowaad siinayo sidii uga baaqsan lahaa in baaritaan lagu sameeyo masiibadii dhacday Oktoobar 7 waxaana lagu xiriirinayaa in uu lahaa siyaasad muddo dheer soo jirtay oo uu ku taageerayo ururka Xamaas si uu awoodda Falastiiniinta qarankooda uu kala qaybiyo gabar la yiraahdo Michelle Oren oo hore safiir oga ahaan jirtay Israa'iil waddanka Mareykanka ayaa difaacaysa Netanyahu waxayna sheegaysaa waxa laga yaabaa in uu sumcad wanaagsan caalamku lahayn saate waxaan aragnay Oktoobar 7 ayaa taariikhda lagu xusayaa waxayna qasabtay inuu mas'uuliyad weyn guti sida hadalku dhigayso Netanyahu bay ka hadlaysaa marka hore waxaan u arkaa bay tiri wixii dhacay Oktoobar 7 2023 inay yihiin wax ku qasbay dadka qaranka Yuhuudda in ay tallaabo kala qaadaan ay naftooda ku badbaadinayaan sida laga soo xigtay dadka caanka ah ee deegaanada loo sameeyay hoggaanka u ah urur dadka deegaanada loo sameeyay Daniel West yiraahdo oo gabar kooxdeeda ayaa waxay raadinaysaa in Israa'iil la wareegto dhammaan waxa lagu tilmaamo dhulka Israa'iil gabadhan iyo dadka raacsan waxay qabaan Israa'iil waa inay la wareegtaa dhulka Ilaahay uu siiyay Israa'iil oo ay ka wada dhulka Falastiiniinta waa mid labaad ee qaybo kamida mujtamaca ayaa waxaa ka go'an inay dimuqraadiyadda ilaaliyaan waxayna ku baaqayaan in xukuumadda lagu celiyo qaabkii loo aasaasay isu dheelitirnaan iyo sinaan bulsho la sameeyo xuquuq siyaasadeed ay yeeshaan dhammaan dadka degan Israa'iil marka laga gudbo diintooda cirqigooda iyo kala duwanaanshooda in generaal oo howlgab ah oo yiraahdo Sareegaas Gadi Shameeni ayaa asna ku eedeynay Netanyahu in uu ka tagay qiimihii udub dhaxaad ku ahaa Israa'iil iyo nolosha bini'aadamka inay tahay mid xurmad leh waxa kale uu ka tagay xeerarkii dagaalka waxa uu ka shalaayay ninkaas in wasiirada ay weydiisanayaan in ay u dhaqmaan sidii loo gali lahaa dambiyo dagaal wasiirada xaq jirka ayaa bayaano kicinaya dareen ah eedeymo la xiriira xasuuq inay geystaan wasiirka amniga qaranka Ben-Gvir waxaa mar kasta ka dhadhacsan in uu cunsurinimo kuna baaqayo in la barakaciyo malaayiin Falastiiniyiin ah
qaarkoodna si ikhtiyaar loo kiciyo halka wasiirka maaliyadda Smotrich uu ku baaqayo Falastiiniyiinta Gaza ku nool kulligood in la dhabar gooyo. sanadkii hore ayuu warkaasi sheegay waxaana waajib ah in Falastiiniyiinta in la burburiyo uu ku celceliyay 3 goor. dhankaas marka waxay ka hadlayaan waa gudaha Israa'iil ma jira inaba haba yaraatee wax ay damqashaha ama laga hadlayo dhibaatada iyo burburka soo gaaray dadka Falastiiniyiinta ah. labadan qolo ayaa waxay ka hadlayaan dhibaatada soo gaaray dadka Falastiiniyiinta ah iyo in riyadoodii la burburiyay waxayna tilmaamayaan in cid kastoo Falastiiniya noloshooda ay saameyn ku yeelatay in meel kasta kaamera lagu xirto la daba socdo waa la sharaxi karaa xukuumadda Israa'iil inay boqolaal albaab ku xirtay tuulooyinkii iyo magaalooyinkii iyo xaafadii dadka Falastiiniyiinta ahayd darbiye ku ooday taasoo ka dhigtay meel walba in qasab dadka looga xirto dadkii la go'doomiyo mar allaali marka Israa'iil damacdo waxa ay sheegayaan labadan qolo Falastiiniyiinta Gaza waxay u arkaan dagaalka inuu yahay masiibo cusub iyadoo la soo xiganayo masiibadii dhacday awoowayaashood ku dhacday 1948 markaas oo 750,000 oo Falastiiniyiin ah xoog guryahooda looga barakiciyay. labadan qolo ayaa waxay tilmaamayaan inay sii ballaaratay lana dardargeliyay deegaanada Israa'iiliyiinta looga sameynayo daanta galbeed. waa gartay waxaa la soo xigtay dad Falastiiniyiin ah oo dhibaatooyinkan laga hadlay ay soo gaareen marka maxay sheegeen dadkaas. labadan qolo ayaa waxay soo xiganayaan Aasha Abu Cali oo ah muwaadinad Falastiiniyad ah oo degan tuulada la yiraahdo Mugayr oo ku tilmaamaysa burburka ay Israa'iil geysatay markii ay sameeyeen deegaanada la gooynayay dhirta guryahooda la duduminayay geedka saytuunka la yiraahdo Falastiiniyiinta beeraheeda ku yaal la gurayay waxaan dareemay way tiri in wadnaha jirkeyga laga bixinayo. Aasha ayaa waxay xusuusataa mar hadal uu dhex maray ayadii askari Israa'iili ah oo u sheegay maxaa anaga Israa'iiliyiinta noo jeclaan weydeen waxay ku jawaabtay adiga maxaad Falastiiniyiinta u jeclaan weydeen. sarkaalka ayaa wuxuu ku jawaabay wax Falastiin la dhaha ma jirto. Aisha ayaa waxay ugu jawaabtay insha Allah maalin waxaa jiri doonta in Falastiin iyo Israa'iil midna uu jiri doonin. gabar ay hawrar u tahay Saara la yiraahdo 17 jir ayaa iyadan waxay aaminsan tahay haddii xataa aan weerarkii Oktoobar 7 2023 la qaadi lahayn Israa'iil wixii ay hadda ka sameynayso marka Gaza ay sameyn lahayd waxaa dhacay batiri weerarkani wuxuu soo dedejiyay wixii hore Israa'iil ugu qorshaysnaa sida hadal ku dhigtay. waa gartay isla arrimaha markaynu ku sii soconno dhanka Gaza Falastiiniyiinta joogta ayaguna maxaa laga soo xigtay. gabar la yiraahdo Rawa Abu Quta oo ah gabar dhalinyaro ah oo laga barakiciyay xero qaxootiga ku taalay Almawasi ayaa ku tilmaantay nolosheeda inay tahay mid waalan magaalada Rafah inay noqoto xabaalo muujinaysa waxa ay hay'adaha caafimaadka Gaza ku tilmaamayaan ama xaqiijinayaan in ka badan 66,000 oo Falastiiniyiin in la dilay hadda xal laba dawladeed ayaa waxa uu noqonayaa mid sii fogaanaya sida labadan qoraal laga soo xiganayo. waxayna soo xiganayaan wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Shlomo Ben Ami oo sheegaya ma arko wili suuragal haba yaraatee laba dawladood xal ah oo Israa'iil iyo Falastiin leeyihiin lagu gaarayo. taariikhda ayaa waxay tahay mid aad u dheer dhulkana waa dhul xadidan laba dal dhulkan ma wadaagi karaan. isla arrimahan waxyaalaha Israa'iil labadan sano la kulanta waxaa kamid ah go'doomin iyana caalamka go'doon ka noqotay warbixinta dhinacaas maxay ka xusaysaa. caalamka ayaa sidoo hadalku u dhigayo ay labadan qoraa u dhigayaan
ayaa u garaabaya Israa'iil oo ay sii lumayso saameyntii ay lahayd iyo sumcadeedii kadib markii xasuuqa Gaza ay ku dhaqaaqday Israa'iil taasoo aad u sii godoominaysa Israa'iil waxaana marqaada cad ka caalamkii oo dhan wakiiladoodii ingulaha guud ee qaramada midoobay ay ka dareereen markii Netanyahu oo khudbadii wareegiisa la soo gaaray safiirkii hore ee Israa'iil Michel Oren ayaa ayadan waxay sheegaysaa wixii ka dambeeyay xasuuqii Israa'iil loo geystay dagaalka labaad ee adduunka dadka Yuhuud ah ee Holocaustiga waqtigeeda wixii ka dambeeyay nacaybka Israa'iil wuxuu ahaa mid aan la aqbali karin waqtigaas waa dhammaaday adduunka ayaa haddana caadi kusoo noqday in taariikhiyahana oo la yidhaahdo Gershom Gomberg ayaa ku gacan seeraya eedaynta xasuuqa wuxuuna leeyahay waa mid nala ku dhijinayo marka la fiiriyo colaadda aan cudurdaarka lahayn ee Yuhuudda looga soo horjeedo labadan qoraa ayaa waxay ku soo gabagabeeyeen maqaalkooda wixii ay arkeen maxay markaa maxamed sheegeen oo marqaati u noqdeen oo warbixinta ku soo gabagabeeyeen labadan qoraa ayaa ku adkaysanaya muddo dheer ayaa dadkii Israa'iiliyiinta ah weliba kuwa dhalinyarada ah waxa ay noqdeen jiilkii TikTok war ka mid ah baraha bulshada oo aad moodo in caqabado fara badan ay la soo gudboonaadeen ma cadda khibradooda iyo saameynta ay ku yeelan doonto dagaalkan iyo maskax ahaan iyo nafshidka iyo troomada waxa lagu sheegay shaska ay dadkani la nool yihiin waxayna aad u saameynaysaa mustaqbalka Israa'iil wadiiqada ay mari doonto waxaa sidaasoo kale laga sheegi karaa Falastiiniyiinta oo qaar badan la dilay qaar badan la barakiciyey qaar badan la dhaawacay oo diiladii u qabeen qaran ay Falastiiniintu leeyihiin ay maalinta ka dambaysa si adkaanayso marka laga gudbo in ereyo badan lagu taageerayo laga maqlayo adduun asaga lafkiisa kala daadsan ra'iisul wasaarihii hore ee Israa'iil Isaac Rabin ayaa aqalka cad ee Mareykanka isagoo hortaagan 32 sano ka hor sheegay xilli iyo rajada ee qarnigii 21aad in la soo gaaray dhiig inaan iska daadano oo nagu filnaatuu yiri inaan ilmayno waa nagu filan tahay waxaa kaloo nagu filan buu yiri in dhiiggii aan u oomanayn labadeenaba aan qaati ka taaganahay qarnigan weli waxaa muuqata in loo ooman yahay dhiig kale oo oonka dhiigga loo qabo waxaad moodaa inuu weli jiro sida laga soo xiganayo labadan qoraal